إذا أرد وحنا نوجا ورنتها وحا سميني صب الجعنت كويدا نوجا ورن وقبو هروب وحلقوا ما يعرق صح وهروبكي وهروب وما يوديش وبري لقطمي لها عنها القشون برينا والي ديلنا والي مركا ديش يبرها فرق انت لايك بودي حي ديش أنا هروب بيلاد والقوا أبرها هي صح أساقوا ما عرفتها صح أساقوا روحيش هروب بوليه إذا أن طلع أقل خيالي صح وقعي هذا درت واديها بس أبو كيسيله وقعي مركونا هروب كلهان وبرا لو يقانا حرا لو لسا حرا لو سوالا ما حرا لو ما ما شاء الله أسل كيس محل laga sameeyaa qabada asaa laga sameeyaa asalkiisa qabo qabadaas laga sameeyaa qabadu waa geed ka baxa wadanka waa geed wadanka ka baxa oo caana leh oo sida geedkan la yiraahdo maarta adarkaynka adarkaynka geedkan la yiraahdo cunadii caanihiisa bal taabaro dadku ku gurto waa sax sideedaas oo kale buu ku dhulsaayo qabaa la dhahaa qabo waa dhiishi waa haruub dhiishu sida ileedahay sida loo yahay waa sax markay sidaan oo kale tahay bire ayaa loogu sheegaa waa bire waxba lagu maalaa sariirtaasi ka xumaysa quruxdiisa lama ka biyeen haddii maarka sariirta u baxad leedahay waa saasay u dhigtay mid baan sariir ku tulsay saasay argaa lagu maalaa صح xoolaha lagu maalaa waxyaabaan hadda dumarku sameeyaan oo dumarka horena weligood ay sameey jireen gaabis ma ku yimid oo dumarka hadda iyo dumarkii hore wax farqiya ma u dhaxeeyo marka la yiraahdo in gacanta wax laga sameeyo ama farsamooyinka aqalka dhiilihii yani dumarkii hore waxyaabihiis ay sameey jireen iyo kuwa deeraha wax sameeyo kuwii hore wax sameey jiray dhiilaha toli jiray oo asli jiray oo culi jiray oo atirayn jiray oo xoolaha ku maali jiray kuwaana hadda dhiila iyo tosha joog bay la ordayaan anaha ku maalahayaan wax ku maalahayaan marka isbedelku xagee buu ka yimid maxaa ku dhacay dumarkii wax sameey jiray maxaa helay maxaa wax isbedelay adduunka haday sida isu bedelay adduunkii baa sida isu bedelay dadkii hore dad lamida ma joogo dadkan hadda maanta ma joogo dadkii hore waxa aragtay wax qabato lahaye ma arko yar caag baa la isticmaalaya iyo joog adiga maanta ayeeyaha ayaa wali wax sameynaya maxaa ku dhacay dumarka da'yarta ee joogaga iyo caagadaha wax ku shubanaya maxaa dhacay ma wixii wax lagu sameyn lahaa baa yaraaday la waayay ma iyagii baa gaabiyay wax lagu sameyn lahaa lama waayin saamudciina waa lahayaa qabadiina waa lahayaa dadkii haatan da'aadaas yar ahaa joog inay wax ku maalahayaan iyo xeero iyo maaha arki mayso mid wax tolanaysa waa dhif mid qabad tolanaysa waa dhif mid muxuu ahayto raasamaalkii awal lagu dhaqmi jiray mid ku dhaqmaysa waa dhif qalladii la dhisa jiray waxa la arkaa in ayaguna si dabar go'ayaan oo dadkii ay calalla iyo waxyaabo markaa aan qurux badnayn la kariim hada waa dadab hata waxaan qalka igu dhisan soo arki mayso dadab midda halka ka muuqata midda halka ka muuqata waa sax aqalka gudaheeda ku jira marka maxaa helay dumarkii aqalka sameey jiray aqaladii maxaa helay cawskiina waa yaalaa ayagiina waa joogaan wayan basameynayaan dhaqan guur waa laga xishoonaya waa la goglan jiray sida waagii hore haddana waxay noqonaysaa alla waana caws goglan caws ana si jeeda helahaya waxaana la oran jiray cawska caafimaad badanoo gogolla inta la samaysto mariin lagu dhigay baa waxaa la oran jiray boorkoodaas kastooda laga dhowro booska halkan yaa lagu kala bixin aan kashkaash lahayn dhulku aan kashkaash lahayn laguma kala bixin jirin marka waxyaabaha la dhisanayo aqalada laga sameysanayo ee maryaha la isku geegeeyay ee waliba markuu roobku yimaado marka aan wanaagsanayn maxaa looga doorbiday marka raradii quruxda badneed hadii cawskii la heliyo bacdaas xunta ah guduudan baa korka laga saaraya wixii dhigama ahaan aan raral lagu arag waa asaas la oranayay hadii raradii raradii hadda la masawiri lahaa arooska kale waxay iga warantaa markii reer la aroosay waxaan aragnaa in marka aqal loo sameeyo markaas oo kale xagee laga keenaa waa rarar la sameeyay dumarka sameeyay dumarkii waaweynaa ma garanaysaa dumarkii waaweynaa baa sameynaya oo sameeya dumarkii waaweynaa baa marka wiilku aroosiyo sameynaya waa sameeyay asagoo yaallo la sameeyo la eriyay ma garanaysaa iyo soo qaadanaya magaalada ka soo qaadanaya ama miyiga ka soo qaadanaya reerahana waa laga ururiyaa reeraha waa laga ururiyaa reeraha mid barar laga soo qaadaya mid barar baa laga soo qaadaya ilaa aqal marka gabadhii markii la soo aroosiyo aqal qurux badan lagu soo aroosiyo waxa caado ahaa jirtay gabadhaas inay iyaduna bilaaw jirtay inay marka wax sameyso
oo dee aqal ay markaa dib u tabcato kale waa laga qaadanaya kii dhis ka dhisanayo naagi hadda tacabkeed waa naagi tacabkeed naagi faraheed waxaa iga warantaa aroosyada markii la yiraahdo waqtigii waayahaagii aroos waqtiyada aad arooska u soo joogtay waqtigaad gabadha ahayd iyo waqtigaas oo dhan aroosyadii dhici jiray iyo aroosyada hadda dhaca isbedel baa ku yimid bal ka war isbedelka ku yimid xiri jiray mariyo waxa loo xiri jiray waxa loo xirayaa hadda mariyo kuwa la guursanaya hadda waxa loo xirayaa bahalkan shaalal baa loo xirayaa shaal mise taash iyo shaal taashka marada cad mara cad iyo mid guduudan waxaan la aqoon jirin adinka waqtigiina maxaa aroosyada gabdhaha aroosyada lagu galbi jiray bal nooga sheekay waxa lagu galbi jiray waagii hore mariyo saddex qaydiyo mara cad oo la oran jiray bafta weeye la oran jiray ba inta la qaato lagu shukumiyo oo loo xiro badan labada indhood baa ka bin jiray labada indhood ma ka bin jiray mariyahan gudgudweynayo kaaniga waxaan u ahaadee qurux bay ahayn mariyaha markay gabdhaha loo xiro alla qurux bay ahaayeen saddex qayd bafta baa loo xirayaa iyo go shaala ninkuna marka arooska muxuu xiranayaa wuxuu xiranayaa intoo kale shaalkaas iyo macawisahaas adyaabay sidoo aha hada raggu qaadanahay inada hadeeray hay guntinada hadeeraa la basay go boora ama siisow mariyo siisow la oran jiray qaali ahaa bariga qaali baan gabadha loo xiray gabar kama dambeey badiyaa soo gaaray masarkan shaalka oo hadda la xiranahay waa loo xirhayaa oo hooyada hadda toddobabaxa markii la toddobabaxinayo waa loo xiray toddobabaxa waqtigiina ma jira waqtigiina toddobabaxa ma jira waqtigii adigu aad ma jirin toddobabaxa ma jirin ciyaaraha ka waran waqtiga ciyaaraha la tumi jiray wala tumi jiray ciyaarta wala tumi jiray ka waran maanta marka ciyaarihii dadkii bariga ciyaaraha ku caan baxsanaa iyo dhalinyarada maanta waxay tumaan bal ma isleeyihiin laga soo tago dhanka arooskii iyo galbiskii gabdhaha xoolaha laga qaadan jiray geela laga qaadan jiray gabadha ugu badan waqtigaagii intuu dhamaa ama imisuu ahaa geel badan baa la kala qaadan jiray baa laga qaadan jiray toban gabadha ugu yar geel aan laga qaadan 10 baa laga qaadan jiray nin walba hayntiisa weeye nin walba intuu heli karaa laga qaadan jiray laakiin bariga boqolka geela ma soo gaarin anigu ma soo gaarin waxay iga warantaa nolosha markii loo eego ama loo fiiriyo magaalada iyo baadiyaha ama miyiga dhanka nolosha markay noqoto mararka qaar magaalo waa tagtay kolley keebaa markaas leedahay way fiicantaa marka inay ku noolaadaan weliba dadka markii qof weyn noqdo waa yeel noqdo magaalada miyaa u roon ma baadiyahan kala u roon baadiyaha dadka markay dadku waa yeelabaan markuu waa yeelabo hadduusan dhicin intuu soconahayo baadiyaha u roon saxaraha u roon xoolaha u maalahayaa u roon caanaha u dhabahayaa u roon magaala maxay tahay صح ما مقالة إنه اللي هو مقالة إنه ماله socodka kale socodka magaalada ma aragta qofkaan hadduu baadiye joogo heer walba waa gaarhayaa waa soconhayaa waa waxbuu tabcanhayaa magaalo isgaari bahayaa weligooda baadiye iyo magaalo isgaari weligeed isgaari dhanka waxbarashadoo kale gabdhaha beriga hore wax ma la bari jiray baadiyaha quraanka kale badanaa lama bari jirin gabdhaha lama bari jirin xoolaha loo dirsan jiray aqal bay qaban jireen qabay tooli jireen hawl adduun waqtiga marka hadda la joogo waxaan aragnaa balka war gabdhihii waxbarashadii ma la geenayo gabdhihii wiilashii isku si wax ma loo barayaa waa loo barayaa hadda Soomaaliya dugsi hadda aan dhigan gabdhaha iyo wiilashu guriga loo kala dhisay laba guri baa loo kala dhisay baadiyaha magaalada laba guri baa laba qowladood baa loo kala dhisay gabdhuhuna mid bay ku xaroodaan wiilashuna mid bay ku xaroodaan dugsi hadda anaga noo dhigan marka ilmihii xagga la geeyay magaaladii baa la geeyay tuulada la geeyay ilmihii markuu waxbarasho soo gaaro waa quraanka waa quraan xiftiga aan waxba laga qaadan weeye dugsiga hadda noo dhigan sax jeer qofkaas quraanka dhameeyo lacag iyo wax farsamo ah oo ma tahay ducaa baa laga qaadan hayaa xagayaga hadda arday wiilkaas yarkaas ka yimid sax xabad lama qaato arbacada laga bixiyaa arbacada waxa kale iga warantaa berigii hore waxa dhici jirtay hooyada inay umusho oo maxay tahay iyadoo caawi umushaba ay geedi raacdo bal ka waran kartida dumarkii hore ay lahaayeen xaaladda ay ku soo umuli jireen
kuwa hadda joogaa ma leeyihiin oo firfircoonidii iyo kartidii iyo male saddex habeen inoo joogay saddex bay rari saddex kaasaa waxaa la yidhi ha lagu fuuliyo saani waraan ku fuuli maayo ii fuulin maayo agahaygan ku soconhaya markaasay waxay dhaheen gabadhaan kaa qaadnay gabar baanu male saani layga qaadinaya anaa gabadha iga qaadanhaya waa iska socda kuwaan moo soconhayaan qof saddex habeen joogay baa soconhaya ilaa intee socotay markaa tan iyo 6 saac oo maalin way soconhayeen adiga umula 6 saac socotay wallaahi way soconhayeen 6 saac oo maalin ilmaha yarka dad baa waxan baaratay intaan xambaarsaday baan aayanta noqon yar aan ugu qaatay iska kuma xagee marka jilacsanaantaas ka timid waqtiga maanta la arkayo cunadii way badan tahay ama cuntadii ama cunooyinka ama raashinkii waqtiga raashinka maanta la haysto iyo barwaaqada lama haysan ayuu dadku sida u gaajeysan yahay ayay dadku waxaan dad wax qabadkooda badan yahay wax qabsan jiray maxaa marka hadda keeni kar kuwa hadda ayagoo barwaaqada haysto raashimadii guryaha la soo dhiganayo xitaa magaalada wixii yaala la keensanayo xageebay jileeca marka ama ka jirta ciladu in dumarku wax sameey waayaan ina maxay tahay adadeygii badnaa dumarka hore lahaayeen laga waayo eeday maxaa sababay waxa sababay waa ayaga liidnimadooda iyo dadkan hadda reer magaalo iska yaalka ah baa sababay waligooday gaareen kuwii baadiyaha waligooday gaareen haday joogaan iyo haday hadhow joogaan midna gaari maayaan saddex maalin joogay saddex bangeel raad saan harkii baan meel ku dhacay harkii islaanta saddex maalin ayuu joogtay geel raadisa bangeel raadiyay tiri waxay tiri harkii markii qoraxda idiisay harkii ku dhowdahay bangeed ku dhacay tiri oo saam qaadi waayay tiri waxay tiri markii aan soo socday saan soconayaan waxaan mid ku soo erebay tiri hal libax xumay oo libax bariga joogay tiri hay markaasaan waxay tiri jahadiga aan u socday jahada aan ahayn waxaan isdhabay tiri meeluhu fadhiyaa markaasaan waxaan u cararay tiri meel u cararay waxay tiri markaasaan hadda tahli waayay tiri saddex meel qof joogay geed baan ku dhacay geedkii anoo jiifay tiri yaa gabar u ii tiri say tiri way tiri xagee ka tiri halkaasaan ka maxaa doonaysa geed baan doonayay ama raadkayga soo qaad ama waa kuu imaanahayaa meeshaada ha ka kacin bay tiri way tiri abaar markaan jiifaan waxay tiri raadkii gabadha hooyadeeda ku tagay tiri hooyadeeda waxay tiri shaaha bay isii socaanay isii markii i dhargisay bay tiri naayada xagee aadaysaa ma socon ka waa socon kara waxay tiri caradii bahalka neefka ku cunay cara aan ahayn yaan isu gadiyay tiri waxaan soconayay waxaan maqaalay tiri koor waa shan bay tiri waa shan gurino waxay tiri waxaa ku xiran bay tiri goor weyn la yidhaahaa ku xiran taasaan waxay tiri iska soco se waa halihii awal ka samartay halihii aan awal ka samray weeyay tiri markaasaan waxay tiri iska soo kaxeeyay tiri guri garan maayay tiri waa iska soconayaa waa nafti walawii baan hay tiri carab markaan marahayay tiri yaa waxaa maqlay tiri halaha koortoodii mid kuray oo dhalay bay tiri oo geel raaci jiray aabii oo awal soo waayo waa ku soo baxay markaas wuxuu yiri tiri walaal beeshaan yaa gabadhi xubta ay xaqeebay ku xidha saaka xaqeebay ku xidha markaas waxay iska soo dhaqaaqo geela cid uma dirsan ayada isku xilqaantay ninkii islaamka ahaa baa naag saddex meel joogtay geel u dirsan lahaa ugu dambeynna way keentay waa keen maasha Allah waa howlkarnimadii dumarkii hore marka dumarka aniga dumarkii hore is asaagsan laakiin aad soo lama dhigi karo mar walba hooyooyinka kaalintooda gabay oo mar walba hooyadu adinku waxa la haydeen hooyo mar walba idin dhiirigelisa oo gabadhu markay 10 sano soo gaarta shaqadeeda ku adkayso waxaas qabso wax doono oo samayso raarka oo geediga sameeyo mayraha diiro adduunka awal joogi jiray hadda ma joogo marka waxa la dhigi karaa halka qalad ku jiro waxay tahay hooyada barbaarinta hooyada waa hooyada barbaarinteeda waxayaan u durayn waxbayaan oranay waa seexo soona toos barigi hore haday gabar xumaato oo marka gabadha ama qalad iyo wax lagu arko deegaanka hooyada baa loo saari jiray hooyada macnaha tarbiyan tarbiyay hooyada